وعن وناكسن داود يلا هالكلي وحقيق دون تي في يوتيوب كأوقات سلايفة وقداود دونتان وركي وقدم بي عالم كدلك يدبت وعن وناكسن داود يلا هالكلي وحقيق دون تي في مقعيق وعب سم الشبين حد بقدك وحي صح بدل يادي لو ذاك awood ciida madeenu oo dhan ayaan isugu geyn doonaa la dagaalanka TPLF Ethiopia oo ka dhawaajisay dawladda federaalka Ethiopia ayaa ka digtay suuragalnimada in awood difaac oo dhan ay kaga hortagi doonto fallaagada ku dagaalamaya gobolka tigreega ee waqooyiga dalkaasi kadib markii dagaalyahanada TPLF ay dhawaan horumar ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ciidamada dawladda awooddoodana loo babacdigi waayay dagaalyahamadan TPLF waxa ay khamiistii la wareegeen gacan ku haynta magaalada Lalibela oo ay magaalo ay hay'adda UNESCO u aqoonsatay inay tahay magaalo qadiimi ah magaaladan waxa ay ku taallaa gobolka Amxaarada oo deris la ah gobolka Tigreega dawladda Ethiopia waxa ay sheegtay iyadu in dhammaan ciidamadeeda ay u dadgurayn doonto gobolkaasi oo ay kaga hortagayaan kooxaha ay ku tilmaameen nabadiidka dagaaladan ayaa sii xoogeysanayay tan iyo bishii Juun markaasoo jabhadda TPLF iyo xulafadeedu ay dib u qabsadeen inta badan deegaanada gobolka Tigreega ciidamada xukuumadda Ethiopia ayaa ka baxay gobolkaasi waxayna dawladdu ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac hadda ka hor si kastaba ahaatee wadooyinka gargaarka oo lagu tagi jiray Tigreega ayaa la xanibay gebi ahaantoodba mas'uuliyiintu waxay abaabulayaan dagaalyahano iyadoo oo dadka oo dhan lagu wargeliyay laguna dhiirigeliyay inay ka qayb qaataan dagaalka isna qoraan ciidamada si loola dagaalamo TPLF jabhadda TPLF waxay doonayaan in wada hadal lagu joojinayo dagaalka lala galo balse wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia waxa ay sheegtay in ficiladoodu yihiin kuwo qayrul mas'uulnimo ah TPLF waxay tijaabinaysaa dulqaadka dawladda federaalka waxayna ku riixaysaa inay bedesho go'aankeeda xabad joojinta bini'aadnimo ee halka dhinaca ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay dawladda Ethiopia dhanka kale isuduwaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa isagu sheegay in xabad joojinta bini'aadnimada Ethiopia ay tahay lama huraan si loogu ogolaado in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigreega ee dagaaladu ay saameynta ku yeesheen oo ay malaayiin dad ah macluul la ildaran yihiin 8 bilood ayaa laga joogaa markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ku dhawaaqay in la soo afjaro dagaalada Tigreega kadib markii ciidamada dawladdu ay la wareegeen caasimadda gobolkaasi Maqale 28 bishii November 2020 sanadkii hore 7 bilood kadib dawladdu waxa ay badbaadisay wajigeedii markaasi labaad iyadoo sheegtay in 29 Juun xabad joojin la gaaray Tigreega si awood loo markaasi xaaro in la sameeyo gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo deegaankaasi hal maalin kadib general ka tirsan militariga Ethiopia waxa uu sheegay isagoo laga soo xigtay in Maqale ay noqotay meel aan tabar loo heli karin dagaal mooyaane hase yeeshee xabad joojinta waxaa la shaaciyay hal maalin kadib markii warbaahinta maxalliga iyo kuwa dibaddu ay xaqiijiyeen in xoogagga fallaagadu ay dib u qabsadeen magaalada Maqale markii ay fallaagadu gudaha u galeen ama ay gaareen guulo fara badan waxa bilowday in gobolada kale Ethiopia ay ciidamo u diraan jiida hore ee dagaalka si ay uga barbar dagaalamaan militariga Ethiopia oo doonayay in xukumo quujiya kumanaan dhalinyaro ayaa isku xilqaamay oo laga qorayay xeryaha tababarada militariga ee dawladda Ethiopia kadib markii Abiy Ahmed uu ka codsaday shacabka inay garab istaagaan militariga qaranka barasaabka gobolka Amxaara agagahu waxa uu qudhiisu dhalinyarada gobolkiisa ka dalbaday in militarigu ay ku caawiyaan dagaalka ay kula jiraan fallaagada TPLF laakiin danka TPLF waxa ay sheegeen iyagu in ay dagaalka sii wadayaan ilaa inta hal qof uu ka hari doono xaaladdu aad ayay khatar u tahay ilaa iminka maqaalkan dheer waxa lagu qoray page-ka BBC-da waan ka soo xigtay anigu cabsi shibin ayaa la socodsiinay dhamaantii waxaan leenahay guuleysta